sheekh mustafa ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo maalin dhaweeyo mawduucaas uu ka hadlayay dalka in la dhiso waxa ka muhiimsan dadka in la dhiso nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam asxaabu rasuulillah geelay dhaqanayeen xoolahay dhaqanayeen beer bay falanayeen aqla cariishay galayeen u karayay nabigu inuu khayraadka arlada u tilmaamo u soo saaro oo dhulka u dhiso u karayay laakiin halka kama bilaabin nabigu waxa nabigu ka bilaabay dadka in la dhiso dadkana maxaa lagu dhisaa diin baa dadka lagu dhisaa iimaanka lagu dhisaa dacwada lagu dhisaa cilmiga lagu dhisaa akhlaaqda wanaagsan ummadda loogu yeedhaa madiinatul munawwara markuu nabigu soo gaadhay abdullah ibn salaam baa ka sheekeeyay yiri markaan arkay wajigiisa waxaan idhi wallahi wajigan wajin nin baa sheegay wajigiisa male markaa nabigu hadalku waraysu yiri muxuu ahaa ya ayuhan nas afsu salaam wa at'imu at'am wa sallu al arham wa sallu bil layli